hawluhu xisbiguna waa waxayna ku cusub kullay annaguna ragayaan waaweynaa annagoo dhallinyaraha baa xisaabi jiri jidhay waagaas active kama aanaan ahayn raggii naga dambeeyana hadda xisbiga ma arag marka nidaamka axsaabtu sidaan ka warhayno waa nidaamka adduunyadoo dhan la qaatay muslim iyo gaalaba oo dadka awoodda loo geeyey shacabka sida hadda halkan ka muuqataba xubno sarsare oo golayaasha ah iyo dadweynaha ka mid ah baa golaha dhexe ku wada jira oo meel wada fadhiya oo aan taytal kale lahayn la wada yahay qof walba hagaye waxa uu xisbiga ka yahay waddadaas dheer oo aynu qaadannay muddo ku soo jirray oo nidaamkeeda aynaan isaga sheekaynayn ilaa intii xukuumaddaanu ay jirtay siyaasaddan xisaabta badan in dalka lagu soo dabaalo la go'aansaday oo ka soo bilaabatay dalka in dastuur loo sameeyo dastuur ma jirin dastuur qabiyaha oo golaha wasaaradda keliya maray baarlamaanka yaallay baa jiray laga soo bilaabo in dalka dastuur loo sameeyo muddo lagu mashquulsanaa wasaarad loo sameeyey golayaasha ka dhammaaday dabeedna afti dadweyne loo qaaday aynu wadnay isla markaasna aynu dhinac wadnay sidii aynu muddada xilka aan hayno ay u hirgeli lahaayeen axsaab dalka uga hirgeli lahayn si doorashada soo socota oo sanadkan ina dhacayso inina sanadka ku xiga bisha January la dooranayo madaxdii fulinta la dooranayo intaas hawsha taalla maaha wax isaga soo dhacay qofka oo lagu riyooday maalinkii lagu sameyn karo waxay ahayd wax silsilada oo xiriirsan oo maalinba meel laga guurayay geedigaas min qaadiyada badan leh hawl adag oo aan markii hore loo dhammayn ee ku gaar ahayd markii hore xukuumadda iyo baarlamaanka ayay ahayd intii golaha la sameeyey guddiga doorashada ah oo xorta ah la sameeyeyna ay ku soo biireen shuruucdeeda iyo sidii loo dhisi lahaa axsaabtana ayaguna qayb weyn ka qaateen khayr allaha siiye dabeedna markii la soo gaaray sanadkan in la bilaabo axsaabtii in la dhaqaajiyo la hirgeliyo waa geedi socod dheer waxaan aaminsanahay ilaahayna ka marag yahay innaguna isaga maragnahay dadka Soomaaliyeed ka marag yihiin reer Puntland gaar ahaan inaynu hawl adag soo qabannay oo aanu doonayno in aynu sida adduunku u dhaqmo aynu nolol dhaqanno oo nidaamkaas xisaabta badan aan qaadano xisbigan oo horseedkiisa loogu magac daray inuu yahay horseedkii nabadda xasiloonida iyo horumarinta horumarin lama heli karo haddaan marka hore nabad iyo xasilooni la helin waxa weeye xisbi ka mid ah 6 xisbi oo guddiga doorashooyinku ay siiyeen certificate-kii inay buuxiyeen shuruudihii hawlo badan baa horyaalla sida kuwa kalena u horyaalliin waddadaa kooban oo aan haysanno golihii dhexe maanta iskumaynu yeeri karo maxaa yeelay golihii fulinta haddaynu hadda meeshaan maanta ku joogno hawsha innagaa la rabaa inaan wadno intii la dhammaystiray oo inta iyadii maalintii hore shirweynaha laga doortay intii ka dambaysay oo annagu aan markaas soo magacawnay ayaa hadda maanta halkan aan ku fadhinaa waxay la tahay Soomaalidu waagii hore mahmaayo iska lahaan jireenoo mahmaayahaas waxaa ka mid ahayd laba la hayaa mid waa hunguri waagaas midna lacag ma jirino waxa maalinta la cuno kaliya laga fikir jiray marka waxa walba fura waxa waa dhaqaale haddaan dhaqaale jirin waxba lama shaqayn karo waxna ma socon karo ajeendada halkan taalla waxaa loo hormariyey doodista ku talagalka miisaaniyadda ururka 2013 waa dhaqaale iyo wixii kale oo raacsanaa xeer hoosaadkii iyo waxaas oo kale qodobadii kale oo xiriirsanaa waa ajeendada maanta inoo yaalla ay tahay
dadkeenu uma baran in ay iyagu dhaqaalahooda ku meel maraan oo iska ururiyaan dad kale waxay keeneen bay jecel yihiin inay intay isticmaalaan ay markaas weliba si xun u isticmaalaan waxaynu ka warhaynaa muddo dalkeennu intii burburku jiray haba layna ka sii daraado meelaha aan maamuladu ka jirin haba ha u sii daraatee dhaqaalaha adduunyada laga soo ururiyo baa lagu kharash garaynayo dadkan Soomaaliyeed ay wax yar oo xoolo dhaqato ah oo iyagu xoolahaas ka nafacsada mooyee iyaguna aan ka maarmin ay ku tiirsanaayeen dadka barakacayaasha ah waddankiisa ku barakacay aafooyinkii ka dhacay dalka oo abaaraha ahaa colaadihii inagu aan isu geysanay oo dilka iyo dhiig badan ku daatay oo ICRC ay ka howlgalaysay waxaasoo dhan waxaynu ku tiirsanayn dad kale wixiis dadkaas wixiisuna wax samada ka soo daatay maaha ilaahay ha u soo dhiibo laakiin waa wax dad inaga ka midii ay iska gooyeen oo mushaarooyinkooda cashuur laga jaray qayb ka mida loogu deeqay inta adduunka danyar mushaar laynoo ka qoray samada ma aha waxa weeye waa mid sadaqa ah oo dadka lagu taageero haddii marka aan xisaab baan samaysanaynaa inaan inagu isku tiirsanaano inagu waxayna la baxno weeye idinku maydaan soo gaarin laakiin sheeko waa ku maqasheen waagii aan dhaqaaluhu jirin 1943 markii la aasaasay xisbiga SWL 13 nin oo dhalinyarada ahaa hadda halka dadka fadhiya gabdho iyo wiilal dhalinyaro u badan yihiin ay aasaaseen cid shaqo haysta ma jirin oo micno leh dad hanti haystaana ma jirin waxay ku tiirsanaayeen wax la yiraahdo aftalyaani baa dhinacan waagaa laga hirgeliyay xisbiga leegada oo Soomaalida dhinacaan degan min raasiga caloola ilaa raaskiyamboni la oran jiray minsila la oran jiray minsila waxa weyn meese waa bil minsila waa bille waa dakhliga billaha sheekooyin waxaan ku maqli jiray gabdhaha muriyadahooda iyo dhagahooda gargaray markii wafti la diraayo gadi jiray dakhli kale ma jirin muqdisho oo markaa xogaa ugu dhaqaala rooneed odayaal xaajiyaal la oran jiray oo dhowr ahaa anigu waan soo gaaray hanti badan ma lahayn waa mararka qaarkood loo irkin jiray wax bixin jiray waxaan anigu xusuusnahay odayaan qaraabo ahayn weliba indhala anigoo yar waxaan xusuusnahay geeliis intuu halka soo saaray uu leeyahay hala geeyo magaaladan Garoowe waa loo gado kulub waxa weeye sidii loo akhriyi jiray Somali Youth Club baa la oran jiray markii hore tan Somali Youth League ay noqon leegada oo macnaheedu yahay naadiga dhalinyarada marka kalaabkaasa Soomaalidu waxay u akhriyi jiray kulub bay oo qadaftayaaniga dadku wax ku yaqaan ogaa intaas waxaan idin tusinayaa waxbaan idin ka tusinayaa intaa haddii aan waagaas aan idin ka sheekaynayo nin indhala oo geelisu dalka soo saaray xisbiga muxuu ahay u iibinayay maanta inagoo indha qabna oo meel walba inoo buuxdo oo kulligeen wada shaqayna oo inna mushaar qaato inna business leedahay xisbigaana lagu jiro inna dibadda ka taageersan tahay ogaaga yarka oo halkan lagu soo qoray ma waxaynaan bixin karin ba anigu waxaan leenahay haddaynu xil kasnahay waa bixin karayna inaan bixinno weeye laba laga hadlayaa mid waa lacag mid hadduu bedelaynaa laba la hayaa mid waa lacag waaga hadday hunguri ahayd mid waa maaliyad jeebka gacanta in la gesho hadda la gaari mayaan maanaya muriyado iyo in la gadgado iyo dhowr xaaji la aado dadku inay nidaamka ay rabaan inay ku noolaadaan inay wax ka bixiyaan wax dibad laga keenayaa ma jiraan dad loo soo baryayaa ma jiraan weliba iyagoo layna ku taageerayo kharashka inta badan oo ku baxaysa doorashada isna xisbigeena waxa ku baxaysa inaga layna cidina ku taageerayso inagu aan la baxno arrintaasi waa muhiim waxayna u baahan tahay in laga doodo oo si hoose oo dhexe looga doodo oo haddii meediyadu hadda marakan inaanu shirkii golaha fulinta aynu furannay intaa ayna ka duubaan oo ay u baahiyaan inta xisbiga aan ku abtirsata waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa kuwa lacagta badan ay ku jiraan oo iyagu haddee aan isleeyahay bakhayl bay u badan yihiin iyagoo guddiga ku haya ka dhimanayaan dalkana waxba ugu tarin carruurtoodana waxba ugu deeqin waxyaalaha caamkaana aan waxba ku bixin aniga aqaan ugumana turayno in badan oo bakhayla
laakiin waxaan rajaynayaa marakan inay wax iska bedelaano Soomaalidu tartankay jeceshahay kuwa horseedna ay wax bixiyaan waa iska banoon la ciyaariyo kuwa shanta xisbi oo kalena ay iyaguna ugu deeqaan nin walba xisbi uu yahay anaga dani waxay noogu jirtaa hadaynu Soomaali nahay in la tartamo tartanka ayaa lagu dheereeyaa haddii aan la tartamin fadhiida la noqonayaa xubnahooda waa fariisanayaan maskaxduna shaqayn mayso marka si xubnaha iyo maskaxdooda looga wada shaqeeyo hal la tartamo oo xisbiga dadka ah oo raba inay taageeraan ama bariixii la ka doonaya ama cid ay la rabaa xil la rabaa hadeer buu bixiyeen qaaraanka lagu soo qori doono iyo waxaan loo yaqaano billaha oo lagu bixin doono sidoo kale si loo dardargeliyo nidaamka axsaabta badan waxaan ugu baaqayaa inta iyaguna xisbiyada kale ah oo xisbigaan la tartamaysa annagoo aan xasdayn oo haddii ay ka badiyaan xisbigaan iyaga dowladnimadu ku wareegayso waqtigu waa dhow yahay iyaguna inay deeqaan u bixiyaan iyagana waa u dhiirigelinayaa kuwaasna maanta munaasabadan baan uga faa'iidaysanaya inaan u dhiirigeliyo taasna waxaan uga jeedaa waxa weeye nidaamkan siyaasad ahaan annagu aanu hirgelinay oo aanu ballan qaadnay doorashada hore ku galnay oo labada gole ka soo dhammaaday ulajeedadiisu ma aha inaanu annagu wax intaanu samayno annaga ka faa'iidno waxaan rabaa dadka inaan uga faa'iidno sidaa darteed cid kasta oo annaga xisbi ahaan iyo siyaasad ahaan doonaysa inay nagula tartanto waa soo dhawaynaynaa waana ku ammaanaynaa inay tartamaan haddii ay biri tartamaan oo xilku iyaga ku wareegona oo baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka baa la dooranayaa haddii markaas doorashooyinka executiiveka iyagu sistemkeenu waa parliamentary xataa munishibiyooyinku ama dowladaha hoose waa parliamentary markii golayaasha lasoo doorto حسابته مركز كواليشن ويسوق راعي كلامه هذه حتى عشان ذكر إنه كوران ويلا هذا أنا قام من شيء بهذا قوات كانوا يعد بانه يسنين هذا اللي بانه قلنا مركز أدون كذا كذا هذا وحي أدون ككتيره والله يسمع راعي إنه حالا كدعان أنت هسه أنا قلنا فائدة أو تاريخ وحجارك موجود أنت هسه ما حد شيء جيا تدوينها غير بلان دمانتود يا أنت تاجرسن حسابتك كله يا أنت وسيد تاجرسن sidaas baan rajaynayaa inay tartankaas oo noqdo tartan sariic